ay kala carareen boolisku waxay sheegeen ilaa 19 qof inay dhinteen dad 60 ku dhowna ay dhaawacmeen isbitaalada loo kala qaaday baaritaanada ayaa socda si rasmiyan booliska iyo saraakiisha uma sheegayaan in weerarkan uu yahay weerar argagixisa balse waxay sheegeen inay ula dhaqmayaan inuu yahay sidii weerar argagixisa hadii la xaqiijiyana Bashiir waxa la leeyahay wuxuu noqonayaa weerarkii ugu xooganaa ee Britain ka dhaca muddo 10 sano sarkaal ka tirsan booliska Manchester arintan hadlay faahfaahin ka bixiyay ayaa waxa uu yiri sida tan 19 people confirmed to have lost their lives in the explosion. 19 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa konton kalena waxa lagu daweeyay lix isbitaal oo guud ahaan ku yaala Manchester. Waxaan u tacsiyeenaynaa ehelada dadka ay ka dhinteen. Waxaan u ducaynaynaa kuwa dhaawaca. Waxaan samaynaynaa wax kasta oo suurtagal ah oo ku taageeri karno qoysaska ay dhibaatadu soo gaadhay. Booliska Manchester iyo hay'adaha adeega degdega ayaa iska kaashanaya hawshan. Annaguna waxaan hagaynaa hawlgallada dadka lagu badbaadinayo. Here at Greater Manchester Police Headquarters. وهذا مركب محمود إلا هذا وح معلومات رسمية ولا قصة صاري وركني إلى هذا إنتاس عن شجني بوليس كنا يقول رقم يعني إن ورر جحسة وها ويبارتان ندين وضعنا يا الشجية سراكيش قصة بريطين يا كهلي وحكم إذا ترسم ماي رئيس الوزراء أو شكتين يباجسي أو هذه دور الشدة أنا إن دور الشوي كذا عيسى بريطين دي تبان كبيش صوص عتا صدق لو حكهلي هو جميعها معارض كبريطين جيرمي كوبن حزب الليبر كا وح يري وأهن وحن وحن تعسيان إن dadkii dhibaatadana ay soo gaartay hay'adaha gargaarka degdega ah shaqo wanaagsan ay qabanayaan ayuu yiri Bashiir 18,000 ayaa ka soo qayb galay xafladda iyada ah waxaana u badnaaba la leeyahay dad da'yar ah oo dhalinyaro ah marka BBC-da ayaa waxay la hadashay qaar kamid ah dadkii ka qayb galay hadaladoodiina waxa kamid ah a massive flash and then a bang سلما فلانا يا وحاود عي قرح وين هذا نقيق أيا حقي وحنا لقتي إذا كدر من حنون قد شيء إذا أيانا يجي مستنا وحتى جنيد حاس كيجا وحين يشك تاني دوني سين الركسة حتى رأي قبته وحد داوع وكسر قاري عروشة لقطنا إني كجبت أيان رينا يا وحنا ماشى دات سنة دلوين يبولل وحن رينا يا إني كمد هايين وحي قرحي واي مجرته سي وحيابها سي أي ماشى واللي كرين device that's exploded because I can't think of anything else that's got nuts that'd be flying around. It was shocking, like just heard this massive bang and then everyone just started running towards us screaming and crying and everyone just trampled over us. waxaan maqlay qarax aad u weyn qof walbo dhankeena ayuu soo cararay iyagoo ooynaya qaylinaya qof walbo wayna dul maray si banaanka uga baxo kaliya aad ayaan u argagaxay ma aqaanin waxa soconaya qof walbo wuu ordayay marka wax walbo waa lagu tuntay everyone was sprinting so we were just getting stamped on and everything. The house lights came off, everyone started to walk out. نالك ayaa damay qof walba banaanka ayuu u baxay markaas ayaan maqlay qarax weyn waxaan xasuustaa in qof walba ay aad ugu adkayd waxa ay ahayd runtii sida riyo camal wuxuu ahaa sida wax film camal ah qof walbana waxa uu u jeeday dhinaca albaabka laga baxo It was everyone was just charging towards the doors. محمود مركب ضمنتي ما جرت إلا يمك عيشة قلت المسؤولية وركني بشير إلى هذا عد شغتي مسؤولية ده وركاسي ما شرته BBC ده وحكوا إلى هذا الشيء اللي راح محمد شفيق ومدحكة هيئة اللي راح رمضان فونديشن وهيئة مسلم أهو كشقي في مجال مانشستر هذا الذي سوى حكم ده إنه يري ما أنت عاو إنه مذا يصنع وحنا أرجنيبو يري تجاسي ضدك يسيب بلاش أكو قاضي وعسبتال هذا جينيو وحنا أرجنيبو يري هوتيل ضدك أفري الباب بدو ده سعرنا الله سيو وحنا يري مال ما الصوص عدو وإنه مذا ونسيو ذي دورنا إن مذا يصنعنا أرنتني aan meel ka wada istaagno marka waxa muuqata Bashiirow in wali xaaladii jaha wararka ahayd ay socoto ilaa 60 qof ayaa hadda la sheegaya inay dhaawac yihiin saraakiishiina waxay ku gaabsadeen kaliya inay ula dhaqmayaan inay tahay weerar argagixisa oo aan xaqiijin ilaa hadda baaritaanadina